akhyaara soo dhawaada maanta waa anigu abaabule waxaan rabaa inaan ka hadlo oo aan muuqaalkan yar usoo duubay waxaan arkay niman aan waqti dheer oo aan dhaweyn aan saaxiib ahayn hadda dad badan oo maanta Facebook aniga wixiisa qorqoraya wallaahi billaahi tallaahi waqtiga social media kuma sii jirin Facebook ba musi jirin baagina dhay baan ka hadlaya 205 206 iyo 280 haddii ku jireen dad yar oo kooban ayaa telefoon wanaagsan ba haystay maxamed cabdiraxmaan faroole horta isaga iskale garow online aniga dad buu hadda ii soo diray maraykan bay qaarkood iga soo waceen xamar baa laga soo wacay garow laga soo wacay adduunka beer aan laga soo wacin ma jirto ninkaas waxa uu dhibsaday oo diiday qoraal uu facebookiisa iigu soo diray eedana aan dadka la wadaaga anigu qoraal ceeba ma ahayn 10 sano ayaa aniga iyo aabahay iyo qoyska reer faroole fayto haysataa biigudid wartaba dhageysta ceebna maaha Puntland problemka kaliya ee ka jira waxa weeye waa radio garowe taala iyo garowe online oo xamar laga propagandada laga qoro iyo faroole garowe fadhiya reer baashan qof isu qaybiyay oo rabo ummad dhan oo Soomaali haafkeeda inay nabad gareeyaan oo ay maamulaan qoraal kasta aan qorayona waa runtiisa anigu ku daraa waxaan ugu daraa waxa weeye inaan dadka tuso in 2009 ilaa iyo hadda ay qoyska reer faroole aftuub noo haystaan especially Puntland aftuub haystaan anaga nama haystaan iyo dadka ku nool community xaga ku nool maxamed cabdiraxmaan faroole waa saaxiibkay markasta soo wuxuu yiraahdaa city gabar warsangeliya ayuu qabaa gabadha anagu ixtiraam baan noo haynaa waa gabadhayadii weligiyo anagoo ka hadlayna ama wax ka sheegayna maari xaasha lilaahi cid ka hadasho gabar murwa oo guri joogta ama yeesan murwa inuu Facebook dhex fadhiday anu ceeb baan arkaa maxamed cabdiraxmaan faroole iyo walaalihii waxa ay ka dhamaan la yihiin gabadh ay hadii sida Soomaalida ay wax u qaybsato loo eego in adeertooda oo dhulbahanta maanta cid ka xigta aysan jirin hadaynu bahasha qasano qabyaalad ka hadalo gabadh daarooda oo dhulbahanta oo reer Puntland ku abtirsata oo wax baratay oo inay dadka halka degan isagu inta difaacayo oo leeyahay Puntland baa lagu hadlahay isagii aabiye ay buug u baarayaan inay wax tarto mooyaane aan aaminsanahay inaanay wax yeelin wadana socota oo waliba nin odaya oo wasiir Soomaaliya ka ahaan jiro Jamaal la yiraahdo oo faroole iyo wiilashiisu ay yaqaaneen iyagana wax badan u qabtay markuu taasi fiirka ahaa iyo markuu wasiirka qorsheynta intaba u dhaxday marwadiisiya oo gurigeedii iska joogta oo la magacaabay oo xafiiska ra'iisul wasaaraha ka shaqeysa inay yiraahdaan magacaabista Jamaal xaaskiisa xafiiska ka shaqeysa ayaa ka soo shaqeysay oo ay turjumaan oo hatta Soomaali ku qori lahaayeen 15 milyan oo Soomaalida baa nacnacda arki lahayd ay tuud gareeyaan cidina fahmaysa Twitter ku xisaaran la socota anigu waxaan arkay ceeb iyo gaf inay ahayd Jamaal ilma faroole haday wax ka tirsanayaan waa nin Soomaaliyeed waa siyaasi anaga inta aabahood ku dhigan anaga siyaasiyiinta ku dhigan siyaasiga waa la dhaleeli karaa waa la dadifin karaa laakiin xaaram caleeg waxa ah qofka qoyskiisa iyo gurigiisa iyo murwadiisa iyo barmageedada dadka ay guryaha jooga in laga hadlo dhaqankaana caan bay ilma faroole iyo garow online ku yihiin dhaqan Soomaaliyeed iyo mid Islaam iyo mid harti iyo mid daarood meel uu ka soo galaya toona ma jirto maxamed faroole hadda ka hor buu aniga qoraal ii soo qoray Facebook-na waa soo galiyay wuxuu ugu yiri 10 sano ayaad faytoona haysataa runtii 10 sano ka badan baan haystaa anigu khalad kuma haysto ummadda ka bayra baan leeyahay aabihiin waa la doortay uu guuleysan waayay geed timir la isaga noo sheegay baan idin fadhiyaa buu geed timir noo fadhiyaa looba daarin in lagu duulo oo baarlamaanka la burburiyo faroole isaga ku baaha ina xasan shire in lagu duulo oo baarlamaanka cabduul uu burburiyo isaga ku baaha lascaanood iyo dhulbahante dhibaatadii Puntland kala qabsatay iyo in ay Puntland gacanteeda ka maqan tahay faroole koobu ka aha markasta oo la damay wax la difaaco faroole ciyaalkiis koobi kay wiilkiisuna Twitter ku qoraa oo beesha caalamka iyo gaalada inta dhageysatay homeless-ka ama boodhan uu ka mid yahay baa dhageysata odayguna af Soomaali buu nagu sheegay oo garow fadhiya 20 sano baynu aftuuban sheeko yar baan rabaa inaan idin la wadaago oo wallaahi oo billaahi tallaahi watan biyaha ku dhintay beerida sheegay markii golaha wasiirada la magacaabay Saciid Cabdullaahi Dini anu Saciid saaxiib Allah
telefoon baan u diray markay soo baxday xanta ah in maxamed cabdiraxmaan faroole uu ku jiro golaha wasiirada ayaan la hadlay anigu waxaan ku yidhi faroole iyo wiilashiisa haddaad soo dhowaysato reer puntland 5 sano waxaad ku dhammaysanaysaa girgira karaya oo dabsaaran yahay dadka reerkaa waa la nacay waa la kala irdhoobay lama doonayo haddaad odayga faroolaa madaxweyne hore weeye sharafku kaa mudan yahay annagoo dhan sharafku naga mudan yahay wixii talaa waa ugu tali kartaa laakiin inuu sidii cabdiweli kursiga kugula fadhiisto cabdiweli khudbadiisa uga sheego yili kursigaad igula fadhido kaa shaqayn waaye aad wiilkiisina golaha wasiirada kusoo tarto maalintaa way ku dhammaatay dad badan oo ku hanweynaana sicid way kaa cararayaan sidii cabdullaahi deni uu nooliya waa la waraysan kartaa imana jawaabin waxna ima oran inuu iga baqana waa laga yaabaa oo sarfeyti waa howl badan yahay armu kaa rikoor gareeyaa laakiin waayahay garaad taladaada waanu qaadanay intaa un buu igu yidhi kow baan ka ahaa isaga uma sheegin weligiina public ma sheegin laakiin inuu wasiirka waayo oo wasiirkiisa aan dhaafiyo xaq anaa sabab baan u ahaa muna dhegeysan doona cajalada waana la dhaafiyey meel yaroo iska baa lagu qoray mataqaanaa presidential security advisory wax noocaas iyo taliyaha dhinaca amniga madaxweyne meel waxba dhexoolde puntland lagala taliya amniga marka waxaan ka hadlayaa waxa weeye qoraalkaa oo ina farool aniga ii soo qoray oo ergooyinka dhan ii soo dirayo waxaan ka saarayaa oo aan facebookga ka baabi'inayaa marka uu twitterkii xumaay caatada ahaa uu tweetgareeyey uu isaguna twitterkii iska saaro raaligelin oo ka qor isagaa qoray 200 oo qof oo la hadlay wuxuu anigu waa hurtay dad badan buu lahaa inuu waa hurtay warsaad ku hurdi kartaa twitterka ma cid aaminaba 20 sano ka hor baan ninkan la shaqeynaya anu saaxiib baan cid alla aabiis aanu aaminin isagaa qora isagaa tweetgareey isagaa edit gareey habeenay maalin masal shaqo aan shaqada ahayn ma hayo isagaana soo qoray fartiisii way anu sifac ma soo garanayna wani hadal xishoonaysid oo waxna isku falaya tahay oo hadda waxaan ugu maqaala Puntland baan u sharaxanahay anu wala yaabarahay dasaarinta ugu dhiirin doontide ay run ka tahay waxa aad sheeganayso iyo inaad nin wax garada oo mas'uul tahay oo de Soomaalida ay wada garanayso oo lagu hanweyn yahay wareen gacdiga twitterkaana meesha ka saar gabadha ninka raali gelin haba siinay dubeys aad inta xaqxaganaysan adiga aabahay waxba raali gelin waa nin raga ah war gabadha murwada ee guriga joogtana raali gelin si dhowr jeer oo waxaad ka qorteen twitterka caatadaana ka saara meesha gabadhan xaalisiyo guriga joogta ka shooda xitaa inay iyadu aragtay ogtay aanu malayn maayo waxan ma ogaan karto dad waxan annaga un ba hadda ka hadlaynaa deeqadayna iska qasataan cid boonboonisa cid aragtaa toona ma jirto aniga damiirka iyaga iyo lixjala aanu idinka qabno ayaan siin weyn qoraalka Facebook aan soo geliyo Soomaaliya qoraal dhib ku jirto ma ina faroole wuxuu ugu yiri aabahay 10 sano haysatay oo oday hartiy oo daarood wuxuu u qabtayna waanu ognahay daarood faroole wuxuu u qabtay Axmed Madoobe xoogaa lacag garow looga ururiyay oo aadana siyaasadeed kala haydeen oo xasan shiiqa ku jibinayseen oo mareexaan aad ku xumaynayseen oo aad kula diriireyseen oo aad lacag Jubbaland ku dhisteen faroole wuxuu daarood u qabtay xaytay inuu daarood lugooyo oo cali khaliif u jiga faroole daraadi ugu dhintay dhiikariyo sonkor ee kuwa kale ay ka carareen ee aad Puntland baabiiseen ee boosaaso aad indhaha isugu qabateen daarood iyo hartito ma jirteen baanu aabaha waxba u qaban ciise maxamed baan waxba u qaban in caasimada maanta laga munaaqashoodo oo wax la iska weydiiyo in garoowe laga raro caasimadana oo ay talado miiska taalo maanta oo habeen kasta la qorfeeyana adiga aabaha ba koowa marka magaaladii dekedalada boosaaso ee ummadda Soomaaliyeed ku nooleed ee hooyadii Puntland ahayd ee lacagta ummadda ka soo galeysay ee Soomaali oo dhan hoosta galaysa markii dalka Soomaaliya burburay adiga aabaha ba indhaha isku qabtay Yusuf Maxamed Waciis dhid gudoomiyaha gobolka Berbera uu afkiis ka dhigaystay isagoo meel public kale faroole ma doonayo inay boosaaso faroole wuxuu doonayaa inay garoowe gaarto faroole wuxuu doonayaa inay garoowe baraadho meel kale oo laga qadeeyo ay si jireen garoowe markay baraadhona cidda manaafacaad ka helaysa reer garoowe dhan ma aha ila garoowe Ciise Maxamed kale iyo madiga ummad badan baa digtay inay iyagu resource-ga iyo dhaqaalaha soo galayaan oo hotelka iyaga haysta oo meeshii landariga dharka lagu dhaqayo ilmo faroolaale oo xalwo kismaayo nin warsan galay oo furtay iyaga ku qabsaday oo roodhigi bay keenayaan oo xitaa shirka golaha wasiirada Puntland markuu socday Puntland markuu shirka aabihii madaxweynaha ahaa ee shirka golaha wasiirada Puntland la qaban jiray iyaga ayaa cuntada keeni jiray iyo biyaha waxay rabaan marka dal ay iyagu afduub haystaan dal ay iyagu maamulaan waxa ay jamaal ugu dhagan yihiin wax kale maaha booskaas seegay ee odayga buugu rogay wuu waayay booskaas waa ilduufay hadday booska heli lahaayeen aqoon ay ku qaataanna male laakiin calaal qalli waxbay kaambeen u gali lahaayeen faroole waa ninka wiilkiisa khatar oo magaciisa qor aqoon gacanta hayo wasiirka loomaysan haleeka
وروسيرك حنانada xoolaha wuxuu dooran waay وروسيرك haweenka muxuu dooran waay وروسيرك kalluumaysiga maxaa ku intaan waxa weeye 200 oo markab baa badda u taagan Faroole inay badda Sharifaan bay rabaan maxaa hadda la taliyaa dhinaca ganacsiga lagu qoro Faroole waa 70 jir isagana siyaasaddu ku jira Twitterkiina waxay ku qorayaan wiilashiisina gacantu haya adduunka Ilaahay xagee lagu arkay nin 70 jir oo wiilkiisii wax la doonaya wiil isna 60 jiray wax la doonaya waxishooda waxishooda hadday idinku karti leedihiin ee aqoon leedihiin ee Soomaali aad ka gadmaysaan idinkaasi fiyadan intaad qaataan Xasan Culus oo hordhigi lahaa oo la Xasan oo wax noo magacaw illa idinka iga tagi lahaa idinka adduunka u shaqo tagi lahaa laakiin adduunku waa idin yaqaan Soomaali waa yaqaan in aabihiin aad ku daba gabataan oo aabihiin uu yiraahdo aniga madaxweyne Puntland ka soo ahaan jiray sanator baan maadaama aniga la ixtiraamayo ilmaha reeyalo wiilasha ay tixgeli oo anigaba Faroole waa tixgelin lahaa hadduu xafiiska igu soo galo soo gacanta maxaad Faroolahay ما تقولي قد ده أديرك يا أول كيس كعنت يميل لتوني قف كسنتين المفروض أقونا ملأ كرتنا ملأ حين يجي كلا يقودنا طانا ملأ سومالنا ويتقنا هو أي هرب ماذا حكى حيران مركب بولان شوجين أي ديبين غير كونفورك البيضها أي ديرك حكومة أي حمر شوج وقاعدين كي أي ديبين تدقوا بدنا اللي ديب وقاعدين بولان اللي قديم أنت فرول شوجي ولا ديبين محمد فرول يا بيسي أنا ديبين دارات سي أكل الدرين سومالي سي بولان وجوين تدك بولان سي أكل إرديان بوساسو waxay ka sameeyeen atom iyo dubays iyo galgalaad dabkii ay ku daareen wali uu baxay wana la xisaabtamay anagu aakhir la sugmayna adduunkan ku xisaabtamayna Faroole iyo caruurtiisa adduunkan ku xisaabtamayna waana maxkamadaynayna ina Faroole inuu Nairobi kaga shaqeeyo madaxweynaha noqonayaana waa riyo madaxweynaha sheegtay Bitoni noqon maysa hada Bitoni xitaa inaad hoolka gashid ayaa Puntland iyo siyaasiyiinteeda iyo jiritaankeeda iyo dhaqankeeda ceeb ku ah iska daa inaad sharaxdid inaad hoolka gashid ayaa ceeb ku ah cidda cod ku seenaysaana inay jirto aan ugu malayn maayo xitaa qof aad maalin sawir la gashay cod heli maayo heerka aad gaarsiisanta inaad kansar tihiin wax lagu ogaanaya maalin qofka aad sawir la gashaan cod ma helo war Khaliif Ciise mudan baa leeyahay ku nacay Ilaahay oo naxariiso oo nin ummadan caan ku ahaa war Faarax Arshira oo Cali Salaabaan oo Puntland ka gadmi lahaa oo adiga aabaha baa leeyahay ku nacay war Dani baa leeyahay ku nacay war Xasan Sheekh baa leeyahay ku nacay war ummadii baa idin nacday ninka aad maalin xaflad qado u leeyahay ama aroos u leeyahay ka qayb gashaan siyaasadda ugu dhamaatay waa la idin nacay war kansar baa teena dadka ka fariista oo ilmaade reer hadii dadka fariisaneen annaga iska keen qabanayna anigu si fiican buu maxaad furo aniga ii garanay si fiican buu ii garanay anigu qori ma soo qaato buurta gali maayo sida atam soo xabadeen maayo anigu san iska kicinayo waa taqaan ilmaade ummadda ka fariista oo waxa ay qortaan 24 saac soo socota hadii ka saan oo raali gelin ka bixin annaguna waxa aan nahay halkaas aan soo dhigay waxaan haynaa codad waxaan haynaa qoraallo waxaan haynaa mu'amaraad adiga aabaha sameysay aniga Faroole markuu sharaxnaa waa ninka afkiisa igaga yiri waxa ay warsan galay waxna noqon la yihiin ee boosaaso ay wax uga noqon la yihiin Ismaaciil Maxamuud baa rabay madaxayna kor qaata waxa uu rabo markuu sharaxnaa weeyo imaaraadka uu joogay waxa uu rabaa inuu dubays iyo warsangeliga boosaaso degan ka dhaadhiciyo inay Ismaan Maxamuud la diriraan Faroole treat buu wuxuu arkayay Ismaan Maxamuudka sababta oo Ismaan Maxamuudka u baabiyay oo uu beelihii kale ay yaryaraa ee Suwaaqroon iyo dadka kale uu u soo saaray inkastoo Suwaaqroon ay mucaarad ahayn amaam u dhisteen haddana laakiin jirteen kale bari degana weyn baa wargaray taasan been ahayn dubayska laftooda qaar buu in baa wargaray hadaba la socota xaqiiqdan ka hadlaynaa Ismaan Maxamuud treat buu arkay aniga afkiisa wuxuu iga yiri ما شاء إنه مثل تبيس سبيشال دتك تجا سنجلي بدك تبيس يا حاجة دي أنت بريت تجا ما ضحك وما قاضيان ما نسوق عيان هدي أيضا إسمان محمود مقارنة كنا تعرف شكرين أيضا إسكعلن عمل بقوة أود أيضا مقام وأنا ربا وبريجي وكميك وجرو بوساسة شو وأنا ربا إنه بدلا معمر ما أنت وحكك قبتنا تجاه الجور ده يبود قلقلا يدبس بكبرى إلهي كبقيان وانا ريكورد غرينيني افكيسا كهي انا فرول سبعان بانو قانا سواء اساسقين ودلينيرا والشباب او انتن كير او خيل دونيه oo gabadhu qaba wiil ka dhalaya ayaana booso ku shaqaysan Australia waa ku dahadi jiray markaan mucaaradkooda ahayn 205 iyo 8 iyo 7 ayaan ka hadlay anigu markuu xukunka doonayay wala socota saaxiib baan la anigu si fiican baan u garanaya ay leeyihiin saaxiibtinimo male oo ehelnimo male oo qaraabo male oo Soomaalinimo wax kuma xeeriyaan oo Islaamnimo wax kuma xeeriyaan oo dhaqan wax kuma xeeriyaan inta midna kuma xeeriyaan warasakin qabanayna hadii wada ka faysan